soo dhawaada saaxiibayaal bilowga sheekada waxaan aragnaa haweeney la yiraahdo Diiniya oo gabadheeda xaaladeeda aad u xun tahay sababtuna waxay tahay in gabadheeda ay ku dhalatay waqti hore markaas waxay ku jirtay mashiinka korinta dhalaanka waxay aad ugu dhibineen neefsashada taasi darteed Diiniya waxay si xanuun leh ugu fiirinaysaa gabadheeda waxay isweydiinaysaa in intee la gabadhaada sidan ugu noolaan doontaa markaas muuqaalku uu jariya waxaana la tusiyaa isla gabadhii 17 sano kadib gabadha magaceedu waa Kool waa ayna kortay waxay ku dhalatay waqti hore marka qaybo badan jirkeeda kamid ah si fiican ma shaqeyneen waxay sidoo kale qabtaa neefta iyo xanuunka wadnaha si ay nolol caadi ugu noolaato Kool waa inay qaadato daawooyin badan inkastoo ay jiraan dhibaatooyinkan Kool aad bay u aqal badan tahay waxay rabtay inay gasho jaamacadda caana laakiin jaamacadda ma aysan ka soo jawaabin codsigeeda taasi waxay ku abuurtay Kool in laga yaabo inay diido jaamacadda codsigeeda hadda waxaan aragnaa in Kool hooyadeed ku soo noqotay guriga iyadoo ka soo adeegtay dukaanka markii guri ay soo gashay waxay ku mashquulshay wicitaan telefoon markii Kool furto bacda si ay u soo qaadato shukulaato waxay ku dhex shakiniyo ay magac hooyadeed ku qoriyeen markay aragtay way Kool weeshay waayo hooyadu daawooyin isticmaasho marka maxaa dhacay habeenkii hooyada ayaa u keentay daawooyinka ay cun jirtay Kool waxa ay dirantay in la siiyo isla kiniiniyadii magac hooyadeed ku qornaa waxay weydiisay hooyadeed sababta daawooyinkaas uu qoriyay magacaaga Diina waxa ay sheegtay in laga yaabo inay khalad sameeyeen shirkadda kiniiniyada Kool si aaminsan ay u qaadato daawooyinka subax xigtay Kool waxay ka soo saartay daawooyinka meesha ay ku jireen marka ay baarto waxa ku qornaa magac Trixon laakiin waxa la yaab leh in daawadaas lagu duubo waraaqad aan haymadii saxdeed si ay u ogaato sirta dhabta degdeg u raadinaysa kombiyuutarka daawada magaceeda waxay raadinaysay qaab dhismeedka daawada laakiin maanta internetka kombiyuutarka hooyada ma aysan shaqeyneen waxaan aragnaa internetka ay dimisay Diina oo meel fog ka daawanaysa gabadheeda markaas si aamusan ay u soo gashay qolkeeda subaxii dambe markay aragtay in hooyada ay beerta ku mashquulsan tahay waxay si degdeg u gashay qolkeeda waxayna soo qaadatay telefoonkeeda ninkii ka qabtay telefoonka waxay ku tiri fadlan caawi ii sheeg waxa ay tahay daawadan arinta aad bay muhiim ugu tahay ninkii telefoonka ku hadlayay wuxuu sameeyay baaritaan wuxuu u sheegay in kiniiniga Trixon inta badan loo isticmaalo bukaanka wadnaha waana kiniiniga midabkiisa casaan laakiin kiniiniga Kool ay isticmaasho waa cagaar markaas ay si dhib ah u aamintay in hooyada ay daawada wax qardan ka wado waxay doonaysaa inay ogaato wax dhabta ah kiniinigaas yahay si ay u fahanto waxyeeladiisa markay sidaas ku fikiraysay waqti cashada Diina waxay tiri waqti dheer baynu meel aan martii karnaa tiyaatarka si aan film u daawano Diina wax ay kiisay tiyaatarka markii dadkii dhame ay ku mashquuleen filmka Kool waxa ay weydiisatay in hooyada mashquul aado laakiin si dhib ah uma mashquulsha waxay u baxday shirkadda daawada waxay siisay daawadii fariimishaha waxayna tiri waxaan rabaa inaan ogaado daawadan waa maxay kiniiniga maxaa si dhibaatooyin uu leeyahay shirkadii fariimishaha ayaa u diiday inay xog ka siiyaan daawada sababta daawada waxa ku qornaa magac hooyadeed halkaas Kool waxay u sheegtay fariimishaha runtii hooyada ciyaar ay ugu jirtaa waxa ay siisay howl inaan raadiyo qaab dhismeedka daawada fadlan iyo caawi hadii ay caawiso aan guuleysana uu taas maqalay fariimishaha wuxuu baaray daawada wuxuu u sheegay in daawadan loo isticmaalo hadii qof bideen aadam uu qaato daawadan uu naafoobi karo markii ay taas maqashay Kool aad bay u naxday sababta ma jir ay gurigooda jooga hooyadeed waxay daawadan siin jirtay tan iyo yaraanteedii iyadoo baadigaab iyo cabsi ku jirto waxay ku dhacdo wareer neef ah waxay awoodi waysay inay neefsato isla markaas hooyada Diina ayaa meesha timid iyadoo raadinaysa waxay siisay irbad waxayna u dhigtaa suuxdeen kadib waxay dib ugu celisay guriga markii ay soo laabatay waxay aragtay in lagu xiray qol Diina waxay waqtigaas ku mashquulsanayd kombiyuutarkeeda iyadoo raadinaysa sidee bay suurtagal u tahay in qof uu naafoobo dhanka kale Kool waxay rabtay inay ka baxdo qolka kadib fikrad baa ku soo dhacday inay ku furi karto albaabka qolka iyadoo ka maraysa daaqada waxay qaadatay bir kuleel ah oo dab la saaray waxayna cabtay biyo qabow kadibna daaqada ayay ka booday iyadoo si badan u gurmeynaysa waxay gaartay qolka hooyadeed markii hore waxay daaqada ku koleysay bir kuleel ah kadibna biyo qabow ay ku shubtay sidaas darteed markii daaqadii jabtay waxay gashay qolka waxayna si degdeg ah uga baxday qolka waxayna furtay albaabka qolkeeda mar kale ayaa ku adkaatay neefsashada waxay isticmaashay qalabkeedii neefta u yaalo qolkeeda kadibna waxay isku dayday inay jaranjarooyin ka soo degto laakiin waxay rabtay in wiishku shaqeyn si kastaba ahaatee waxay ahayd inay qolka u degto markaas waxay marka hore soo turtay kursigeeda cuuryaanka kadibna iyada waxay isku dejisay jaranjarooyinka way ku dhaawacantay laakiin way sadkeysay waxayna dib ugu fadhiisatay kursigeedii cuuryaannimada ugu dambeyn waxay ku guuleysatay inay guriga ka baxdo laakiin yaa caawinaad ka dalbatay ma jirin qof agaarkeeda joogay waxay u baxday wadada waxay maqashay dhawaaq baabuur Kool waxay u maleynaysaa in baabuurkaas uu yahay hooyadeed sidaas darteed waxay isku qarsi keenta laakiin dhabaantii wuxuu ahaa baabuur xumaal ah waxay hor istaagtay baabuurkii darawalkii baabuurka ayaa istaajiyay Kool waxay weydiisatay caawinaad waxay u sheegtay sheekada oo dhan si hooyada muddo dheer u doonaysay inay noqoto naafo oo siinaysa daawo ay ah nolosheeda waxay ku jirtay khatar waxay ninkii u sheegtay si kastaba haatee waxaan rabaa inaan gaaro saldhigga booliska ninkii uu dhageystay kahor intaan baabuurka gelin Kool Diina ayaa timid iyadoo gadaalka imaanaysa waxay weydiisay ninkii halkee baad gabadheeda u wadaa wuxuu ku jawaabay gabadhaada waxay u maleynaysaa inay si qaldan u siiso daawada waxay rabtay inay boolisku sheegto aniga waxaan rabaa inaan arintaas ku caawiyo Diina aad bay u xanaaqday Diina waxay isku dayday inaysan wacan u sharaxdo waxay isku dayday inay joojiso laakiin markii aragtay in ninka uu joojin arinta Diina waxay go'aansatay inay isticmaasho dariiq qaldan waxay cirbad ku muday ninkiisa u suuxo kadibna waxay ka xisatay Kool mar kale Kool waxay ku
laabatay nolosheedii khatarta ahayd. Diini waxay kool ku xirtay silsilado hoosta guriga, waxayna diyaarinaysay daawo cusub si ay kool si rasmi ah ugu dhigto naafo weligeeda. Kool waxay doonaysay inay si kastaba uga baxdo meesha, markaas ay bilowday inay raadsato wax muhiim ah oo hoosteeda yaala waxay ka faa'iideysan karto si ay uga baxdo meesha. Intay raadinaysay kool waxay heshay qaar ka mid ah dukumiinti oo muhiim ah. Waxay heshay warqad ogolaansho ka timid jaamacad. Hooyadeed ayaa meesha ku qarisay. Markay aragtay kool aad bay u murgootay sababtoo ah tani waxay ahayd riyadeeda ugu weyn ee nolosheeda. Taas ay hooyadeed burburisay. Markii sii baarisay meesha waxay heshay dukumiinti isbitaal ah kuwaas oo magaca kool ku qoran yahay. Markii ay akhrisay dukumiintiga waxay ogaatay in ilmo dhiciisa oo la yiraahdo kool oo dhalatay 12 sano ka hor geeriyootay dhowr saacadood kadib. Halkan ayay ku aragtay shahaadada dhimashada haddii gabadhaas dhimatay. Markaas yaaba kool waxa ay ka heshay dukumiinti goos ah wargeys kaasoo sawirka lahaa lamaane nin iyo naag. Way ooyayeen sababtoo ah maalinta ay ku dhalatay kool isbitaalka isla maalintaas ayaa laga afduubtay isbitaalka. Markay aragtay warkan kool waxay fahamtay in Diini aysan ahayn hooyadeed dhabta ah ay yihiin waalidkeeda dhabta ah kuwaas. Waxay rabtay inay meesha ka baxdo laakiin sidee albaab kasta wuu xirnaa. Isla markaas Diini ayaa timid. Kool way naxday markay aragtay. Waxay tiri iga dheerow waxaan ogaaday inaadan ahayn hooyadeeda adiga iga afduubtay isbitaalka. Aniga waxaan ahay gabadha lamaanaha. Diini waxay dareentay xanuun naafeed markay maqashay. Waxay tiri kool rumayso waxaan ahay hooyadaada. Aad baan ku jeclay kuma siino doono daawo mar kale. Kaliya waxaan rabaa inaad ina siino laato. Markii kool si xun ugu dhaqantay Diini way carruurtay. Waxay buuxisay cirbad weyn oo daawadii curyaannimada ah si ay isku badbaadiso. Kool way gurigurtay waxayna gashay armaajo. Ma aysan awoodin inay xirto armaajada si ay isku badbaadiso. Waxay cabtay dareero kaasoo ka dhigay mid suuxsan. Diini waxay u maleynaysay inay dhimatay. Markay sidaas u maleynaysay Diini waa ay xumaatay xaaladeeda. Way oosay weliba si daran. Waaran waxay u haysatay kool inay tahay gabadheedii. Ma aysan rabin inay kool ka fogaato. Waxayna siin jirtay daawo naafo ah si aysan kool ugu noqon waalidkeeda dhabta ah. Markii kool soo miirsatay waxay is aragtay iyadoo ku jirta isbitaalka. Dhaqaatiirtii ayaa ku hareeraysanaa agteeda. Caloolkeeda ayaa la nadiifinayay. Markay dibadda eegtay waxay aragtay Diini oo taagan. Waa iyada isbitaalka keentay. Markay aragtay Diini way cabsatay mar kale. Waxay u yeertay kalkaaliso agteeda taagneed. Waxay ka codsatay qalin iyo waraaqad calaamad leh. Waxay rabtay inay wax u qorto kalkaalisada. Diini wax ay tan ka aragtay dibadda. Waxay ogaatay in kool ay rabto in kalkaalisada ay u sheegto wax ku saabsan iyada. Markii ay tan fahamtay wax ay garaacday digniintii degdega ahayd. Isbitaalku wuu isku dhex yaacay. Fursad ay halkaas ka heshay. Waxayna la baxsatay kool. Markii kalkaalisada timid qolka waxay aragtay kool oo meesha ka maqan. Kool waxay weydiisatay qalin iyo waraaqad si ay wax u sheegto. Kalkaalisada waxay bilowday inay ka shakiso hooyada kool. Si degdeg ah ayay u sheegtay ammaanka isbitaalka. Diini waxay kool keentay jaraanjooyinka agtooda. Ammaanka ayaa qabtay Diini iyadoo hortaagan kool. Markay aragtay ammaanka Diini waxay soo saartay bastoolad. Waxay bastoolada ku fiiqday ammaanka iyadoo leh waxaan rabaa kaliya inaan gabadheeda guriga geeyo iga bax jidka. Markii Diini aysan dhigin bastoolada ayaa khasab ku weeray iyagoo isticmaalaya bastooladooda. Sidaas darteed garabka mid ayaa dhaawac ka gaaray. Dhaqaatiirtu waxay badbaadiyeen kool. Waxay noqotay in dhacdadan ay dhacday 7 sano ka hor. Kool waxay hadda ku jirtaa xabsi si ay u booqato hooyadeed. Diini waxay xabsiga loo taxaabay sanado badan sababtoo ah kool waxay ka dhigtay naafo si ula kaca. Weli kool waxay ku jirtaa kursiga curyaanka. Si kastaba ahaatee waxay awoodaa inay dhowr tilaabo socoto. Waxay u socotay dhinaca Diini. Waxay ku leedahay waxaan awoodi doonaa inaan si buuxda u soconi doono. Markii aan joojiyay daawada ay siin jirtay kool wax ay mararka qaar u iman jirtay si ay Diini u booqato. Waxay u sheegtay waxaan dhameystay waxbarashada shaqo fiican ayaa helay. Waana guursaday waana helay waalidiinteeda dhabta ah. Diini si aamusan ayay u dhageysatay. Kadib waxaan aragnaa kool oo ka soo saartay afkeeda daawo si adag u duduuban. Isla daawadii Diini oo nolosheeda dhan siisay si naafo u noqoto. Hadda kool ayaa daawada afka ka gelinaysa Diini. Waxay caddaatay inay argoosatay oo aysan rabin in Diini ka soo baxdo xabsiga weligeed. Filimkuna halkaas ayuu ku dhamaanayaa.